معان وهامدان هوي لقا أوراني ليون معان وهامدان هوي لقا أوراني محمد علينا dadkii xafladan qiimaha ay qaayaan soo qaban qaabiyay oo sharafta leh quruxda badan waa u hambalyeynaya hadalku waa maasintiina uma filna ay kulaaliyaan waa maasintiina marka labaad waxaan u mahad celinayaa dadkii ka soo qayb galay gabdhaha iyo wiilasha oo dalkooda jecel sida runta ah inta ka soo qayb gashay ayagana waa u mahad celinayaa intaan hadalkayga sii guda gelin waxaan jeclaan lahaa inaan ambaareeyo labadii fal ee waxashnimada ahaa ee ka dhacay Soomaaliya waa kii Muqdisho ka dhacay ee dadka masaakiinta ay ku baabeen waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto waxa kaloo aan ka tacsiyeenaynaa aan ka xunnahay aan muujinaynaa inaan ka xunnahay falkii kaloo waxashnimada ahaa oo isagana ka dhacay Kismaayo oo lagu qaarijin lahaa ninkii saaxiibkeena ahaa ama gudoomiyaha looga dhigay Jubbooyinka Axmed Madoobe waana cambaareynayna waxaan u maleynaa inay la cambaareynaysan ama raadina ka yahay waayo naftan Ilaahay baa iskale Ilaahay baa goon kara waana qalad qof binaadana inuu qofka kala dilo ama uu ku xadgudbo waxaan kaloo idin sheegay aniga xildhibaankiina aan ahay yaa meelam iyo folkatinka idinka idin ahay reer Denmark maxaa jira ceebay noqon lahayd hal qof haduusan baarlamaanka noogu jirin waa xoogaa ma qurux badnaan lahayn qof walba waxaan mar imaadan waxaan diyaar u ahay oo Denmark ka imaado inaan soo dhaweeyo habeenka koowaadna liida aan geeyo casho ka siiyo waxaan halkaan ku cadaynaynaa in xukuumadda uu mudane Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay in sida xaqiiqada howlo fara badan ay qabatay ayna ku guuleysatay dhanka arrimaha dibadda iyo dib u heshiisiinta dalka dawladda way shaqaysay teeda kale baarlamaanka anaga haddaanu nahay hadda waxaa jira waxa la yiraahdo check and balance lacagta la iska aruursan jiray wixii corruption iyo wixii oo dhan way dhamaadeen marka dawlad aad ku faani kartaan ayaad qabtaan waxaana loo baahan yahay inaad taageertaan mar walba dawladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay muddada yareed ay joogtay halka sano ah in hawadayada ay dib noogu soo noqoto ana laga maamulin dalka Kenya Soomaaliya hawadeeda maanta waxa laga xukumaa Muqdisho waa laga xukumaa taas waa guul weyn waxay kale dawladda ay ku guuleysatay in aysan mar dambe NGO aysan waxba u soo marin si direct dawladeena loola macaamilo dawladda waxay kaloo ka shaqaysay in ay mishaar siiso dadkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii maanta xuquuqdooda hela sida runta magaalada Muqdisho sida lidin kaga sheekeynayo maaha bahalana la joogaan qarax meeshan ka dhac mooyaan magaaladu waa fiican tahay way nabadoon tahay dawladana way dadaalaysaa وانا إنا كل سونانا وانا تاجرنا دولتنا دولتنا ودولة رنتي technocrats ده أقوال باولا ملحوينا وانا أقويانا منك بدوني برلمان كواسيلوك prime minister كا ده كبرلمان كوجيرنا وحيو بديه إنه أقويانا مركوا دولة الأسبوع هنلاقي كرسي حقيقة مركا الله أنك جبويك أنا يوحنا حلوان في يقولي أو كسمايتك أنا يوحنا oo arimaha dib u heshiisiintana bilaabay aniga ayuu ahaa maanta Ilaahay baa mahad iskale dadaalkii hore aan u bilownay oo aniga hormuudka markeedii hore maanta waa lagu guuleystay Jubbana waxa weeye maanta waa nabad waana lagu heshiiyey ninkii reer Jubba aan watay kala dalkiisa taasna waa guul soo hoysay dawladda uu madax ka yahay mudane Xasan Sheekh waxaa la idinka rabaa waxqabad dadkii UK joogay dadkii Mareykanka sida runta dalka si fiican bay u soo galeen laakiin meesha waxa ka maqan dadkeen Scandinavian-ka dadkii Scandinavian-ka
xamar laguma arko gobollada kalena laguma arko marka waxaan idin leeyahay meeshaan dhulkiina maaha east west home is the best dalkii ha lagu laabto gulaanadkii mar rabo inaan hadalkeedu ku badiyo Soomaali baa iskale dalka annagaa iskale dalka annagaa la rabaa inaan ka talino waxa weeye dhaleeceen iyo personal attack iyo critic waxba kuma soconayaan nin walba oo raba inuu dalkiisa wax u qabto ha yimaado contribution ha ka geysto mashaariic badan dalka ka socota waxa weeye aad list ala aqal haddaadan dalka wax u qabanayn dalka ha loo duceeyo laakiin waxaa idiin sheegayaa sida ku tahay Denmark iyo wadamada Scandinavian-ka sida Soomaaliya laga dhigayo ma aha Soomaaliya qabiil waa ka dhamaaday maanta dadkii hore u socdaan intii isku dan ah intii constructive ah intii creative ah way isnaacaysaa intii dib jir aan way haraysaa marka waxa weeye dawladdu wax badan bay qabatay haddaan idin kaga waramo baarlamaanka maanta kii hore kala ma dad technocrats u badan yahay dad aqoon-yahano u badan yahay sheek aan baranaysaa jira subax markaan galeynana buug baan saxiixnaa markaan ka soo baxaynana buug baan saxiixnaa macnaha sida hore iyo cayaartii hore ma jirto macnaha waxaa yimid in la isla xisaabtamo guddiga fulinta nimankan fulinta ee golaha wasaaradda waa lala xisaabtamaa oo guddiga fulinta ayaa la xisaabtamaa waxaana laga rabaa waa midnimo waxaana laga rabaa waa tanaasul waxaana laga rabaa dawladdeena inaan taageerno waa mahadsantiin mar raba inaan warka ku sii dheeraado maama Italiana oranaysa partecipare alla gioia di qualcuno non è che partecipare alla gioia di qualcuno non è altro che partecipare alla gioia partecipare al dolore di qualcuno non è altro che disfrutare waxa way farxadaas ugu nima farxadeena dabalay noo tahay barina gabadheeda lagu guursanaya ka soo wada qayb gal si ay farxadda loogu noqoto farxateen ya SKI نسأل وتاج وكامة وإن شاء الله في سيسي سومالي يورديش. سنان. هاي مركز كسر هذا عاو حفلة الخارجة وعاو مرينا يا إلى نقطة مجال كوبنهاجن حفلة بعد عدد فرحان ومستير معناها مركز الغشاء. وعربانا وعاو كبقابيا فكر كان اسمه كانها لكن اللي فكر كان قالقة ومعناها آدم الوين ومحمد مدالها كوبنهاجن محمد مولود إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا رابط قرنا على كلام الله. قفل بوم كهذا الموضوع. إن كستوا قبقابيا هذا روح إلى النقطة هنا كير هذا. إن كستوا في العين قفكي هوش وذي هذا نكاه الله هذا روح إلى النقطة هذا البني أسوق ساري هورار وناكسر يمرتي بدل ما هيو. إن كستوا ضد جولاس نهاية كم يدرتي أو ضد هذا الشيء عليه مبارك ساكت مركا وعن رواينا لما كلمة بصدق عن كير هذا سوالد وعد هذا هذا البنيين موسى ضمين نكي وحير كير لك موسى ولتي مركا ورقد مساقرا كل جينا ورقد بقرا من قرضان إن شاء الله وعن ليه كرو وداعية الكورتو ذي بدل وحوير أو ربانية وجدت مكانها كعلى الرابر بين واحد حرات في نفرسيس أو قري هذا كار ضفك كم هلا تاريخ ذا يقول شيء كان وعنوت المام هلا على سومالي ما عيناي وعيني سومالي وضد عيسى بدن وحنا كنت المام لها بالك ولا برامباليستا لبض الدقيقة وكنت عشان جلو كردون كو لبض وعيني وضد تك بدن واروديس وعير وانين فام وادد فام بدن وادد اسلوي وادد جيسيالا وادد مرتصور له
laakiin meel yar naga dhiman dabeecadda barbaaris kala joojiyo dabeecadda permanent naga dhiman meel lagu adkay kala go'doon waa kow labo waxa kaloo aan nahay runtii markii ay dawladda dhalato bidaacada inkastoo qofba uu meel ka bilaabo runtii waxaan rabaa hal ilbrasiya ama halka yar dhex mara taariikhdeeda haddii ay aaminaysaan muddo 10 sano markaa jiro 11 sano siyaasadda waa jecla waan ka hadli jiray hadda iskuulkaygu ma jiro oo inta tribunalina waxaan rabaa markaan midna ka hadlo waxaan qabnaa waxa la yiraahdo xiisaasna waa idin cadeynaya markaan leeyahay ninka Francisca soo qaata marna Soomaalida wax ka sheego laakiin ay idin cadeynayaan dilisheeda waxaan ka mid ah marka dawladda dhalato qof kasta oo Soomaali ah ha ahaado haween ama rag ama ha ahaado yar iyo weyn ha ahaado qof oo yani bulshada grassroots-ka dadka hoose ama dadka akademiyaadka ama dadka culimada waxaan xiiseynaa markii uu yimaado rajibka soo cusub believe me markii yimaadaan kulliga waa istaagayna waa xafladayna waa ordayna ninka noogu ragnimada badan ama qofka noogu mid oo yani dabeecadda barbaaris ka guuro oo dabeecadda degan qaato hal sano shaqeyn kara sanad kale baad rajaxumo iyo belo bilaabaya warnimaya runta marka isku sheegno waxaan salfudayda ku baabiinay waxaan Soomaali hadana waxaan jecelnahay waxa la yiraahdo geela kala garoorka kan ma dhici karto haasha waa inaad hadday ka soo dhisto la ruuxo meel la dhigo ee isbedesho waa kow مسؤول كذا صدق يعني وعرفناه كذا ويك هذا الشيء محمد الله بعيانا علم ما تعرف وحواية Rome is not building one day Rome هالمال ما تسمع نجح بمالنا الودرك إلا الرومان كلا دلسة مركز صبر كاسياشة من ذكر وحواية الصومالية وحلاقي ربع شعب كل شيء دولة كل شيء والله وشعب حكومة شعب قف كانت ودي دولة كل شيء أنا ما حصل شيء ما برايم مستر كلمة كماشة كنيك ما يلك تليع عينك ما قدامي أقول أنا على باشا دائرة عشان وجريسة حتى أي كل دينه وأنت مسؤول كني أنا وقلنا ويصحى وبنادم ولا لا لكن وحن وعينا ما وحلان هذا وحبان ما بلا الدولة بين بقول كي ولا بقول حكومة بوليسة سياسة دارمة وحيار بالليل oo xagga arrimaha gudaha meelaha ay ku arareen inuu ku wadaajiro insha Allah inuu dhawaanaysa ciidamada diyaarinayaan barnaamij mid kale waxaan rabaa wax walba waxay ku bilowdaan tartiib waxayna ku dhawaadaan tartiib marka fulaydka la joojiyo ilaahay ilinkiis beesha caalamka waa noo soo jeeda waxaan ku bishaareynaa shirka Brussels ka dhacaya Isniinta waxaa loo ballan qaaday Soomaalida oo confirm oo maqli doontaan 5.5 up to 6 billion وحتى 7 بليون حتى وقالسها أو 3 years 6 سنة دول دول قرشين اللي مسمين لها وعلى سكوت ليلة واباهي أديتك مشاركات سكوت لنا على مجلس إن شاء الله وين ما نسأل هذا سنة أسوأ تاس مثل وعن ربا الرجل من كهلا خير الله سيء ولا لا نجبوينك رنت مركا إلين شاقو سومالي وحنا مليسان إلي سيسو أدائي مليسان ميسا وعبد الله international community لما جروب أو أي بي أهاي وين كلا راينا أنا جانا يعني غير الوجري وهو أنا جانا واحد سنة دوسنا ولا سبيس هذا الحمد لله ونور ماتك ولا على الجبو وحن مر يصدق يوجان كولا شعب كولا أنت كشقي صورنا فاكر سنة ما مكاس هذا فاكر وسيجري إن شاء الله والله في برج كايونا كل وين أقلنا ونقلنا كل هالقرن هسيات كيان الشيء كالكاس كان عاي وغير ووجه بلوز waxaa dhici karto inuu heshiisku wax yar iska yareeyo ama sidoo kale uu noqon waayo laakiin waxaan sheegayaa Soomaalida dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbooyinka oo insha Allah isku bedeli doona mar rasmi ah waxa ka go'an in nabadda ay bilaabeen ay ka biradhaliyaan oo ka go'an waxa ku garan kartaa tusaalayaal mudane Sayid Axmed Madoobe markii uu ka tagay magaalada Muqdisho oo dawladda Soomaaliya la heshiiyay markii uu ku noqdayba airport ka tagay gurigiisii ma gaarin markii barti loogu talagalay baabuur rakibana loo diyaariyay xagga uu ka noolyahay laakiin waxa laga rabin soo kubto marka kullu ala hal waxaan dhigay heshiiskaas waa soo dhaweynaa waana taageerinaa waana garab taaganahay waana guul Soomaaliya wada waxay aan loo mahadiyo waana wadada ka soo jeedaa adinkana waxaan ugu sheegaa shacabka dhan dawladda walaalayaal international community waa gumaysi cusub gumaysiga physical waa dhamaad wallah ما يلي يا هرب مسكحين هرب وحاول لعنك على السيارة ولا السيارة wax been laga qoraa 5 bilyan oo been lacag shilshin
أما هالهربان أما تمطر لو حتى بالناس كورنا قالوا كنا مركو عصية إلى وردولة والله أنا قال لك مسكش international community تغيب اللي يسكنوا جاب هذا فاعله أنا يراك السلام عليكم ورحمة الله معمولة مدالي وما صدر waxaan rabaa inaan u yeero ganacsade cabdulqaadir cali bucul waa deeqka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين أدبر فرح سنين حفلة عن كسوق الجو عم في لي هون كمركي لبعض وأنا ما نرشة الحفلة تنتيكو رئيسي مدحونا أقل من عالم بيه أدبر حسوستا أبين كاس وحفل حدي عنا كسوق الجو شعب صوماليات أو دبر دقيقة taageerada qarankooda aad baan u faraxsanahay waxaan kaloo fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto kuwa xagjiriinta argagixisada arxanlaawayaasha carruurta iyo haweenka Soomaaliyeed xasuuqa la daba taagan waxaan filayaa kuwaas waxaan uga guulaysan karnaa inaan la shaqeyno dawladdeena oo gacmaha isqabsano maamaa Soomaaliyeed baa waxay tiri walaalo isnacay way xabaaqbadiyaan wayna xoreeyaan dadka Soomaalida waa walaalo waa wiil iyo abtigiis waa ehel iyo qaraabo nimankaas ummadda Soomaaliyeed dawladnimadooda diiday nimankaas kooxaha afka duuban ee dhibaatada taagan wata waxaa ila quman ama bannaan aan joogno ama gudaha aan joogno nin moraal ahaan u taageersan iyo nin ficil ahaan u taageersanba inaan loo asxaanfarin ee sharciga horgeeyo anigaan idinla hadlaya Copenhagen bay iga soo waceen halkaan bay waceen waan ku dilaynaa bay igu dhaheen gaar baa tahay waan ku faraxsanahay inay al-shabaab ii dhaarato sababtoo waxay aaminsan yihiin haddaan diido inay dilaan waan ku faraxsanahay waxaan u tacsiinayaa qaraxii foosha xumaa fulaynimada ahaa nacasnimada ahaa ay la beegsadeen madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo madaxdii ka soo laabatay caddaynteedana waxaa inay nabaddiid yihiin oo aysan rabin ummadda Soomaaliyeed inay isku hoyato oo la heshiiyo oo ay gacmaha isqabsato caddaynteedii tii shalay dhacday lahayd waxaan idinku boorinayaa inaan dawladdeena sharafta leh hiid iyo hooba la garab istaagno qoys iyo qarannimo fiican anuu xamar baan ku soo koray iskool baan naga soo baxay dad badan oo yaqaanaa meeshaan fadhiya ree xamar jadiid baan ahay dhagax baan ahay carruurtayda isbitaal banaadir bay wiilasheeda waaweyn ku dhashay waxaan filayaa ina qawaa fadhido way garanaysaa wiilasheeda meesha ku dhashay marka dadaala ummad yahay aan gacmaha isqabsanno waxaan ku dhiirinayaa inaan dawladda hiid iyo hooba la garab istaagno taasaa ina deeqda qarannima ina deeqda qoys inama deeqo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa aad iyo aad ayaa mahadsan hilmaan hadal kuma jiro waxaan rabaa asigoo naga raalli ah inaan idhaahdo cabdulqaadir cali bucul adoo raalli ah waxaan kusoo dhaweynaa mikrofoonka waa mahadsantahay
الله الرحمن الرحيم وحان سلامة هيا الفدة يمكن لو قبتي ومحمد نولي إصلاحا كميدها إيوه سومالي جد جيدونا قبلها ويوينكا وضياشا إليشا كل موجودة وحان سلامة هيا مقولك يتوقع يا أفرت يا سلامة هيا سلامة بعد جيد وحان دونا هيا أخيارة الصوماليين waxaa la yiraahdo dawladda sanad jirka ah inaynu meelaha joognaba taageerno oo u yar socodka wanaagga sharafta wada inaanaan ka hor imaanay taageernaa haddaanu taageeri weyno oo maalin walba ninkii meesha aan u dhiibanno aan ka hor imaadno waxaan noqonaynaa dadaan jirin baan noqonaynaa oo jiritaankoodu xun yahay oo aan waxba qabsan karin oo macaaradnaa wax kale aan aqoon baan noqonaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegahayaa midka xun oo macaaradka ah oo dabadhilifka ah ama dadka laaya ama waxa la yiraahdo dadka wax qabanaya macaaradka ku ah inayna raacin waxa kale oo ii sheegaya dadkii yani lagu laayay yani banka iyo dhibaatada loo geystay waxaan ambaaraynayaa kuwii u geystay oo dhibaatada ku sameeyay waxaan kale oo yani garanaysaa ambaaraynayaa kuwa yani 24 saac ilmaha iyo caruurta iyo hooyooyinka iyo meesha maxaad ah oo lagu garanaysaa cunteeyo qaraxa la taagan baan ambaaraynaya dawladdaas haddaad maqashaan wax qabsan oo yani waxaa la yidhaahdo waddankiisa wax u qaban oo waddankiisa uusan taageerin wuxuu noqonayaa dadaan jirin oo jiraatiinkiisu uus baaba'ay baan noqonaynaa waxaan doonaynaa dawladda in la taageero nin walba meesha uu joogana uu ka taageero waxna ka qabto sidii wax looga qaban lahaa waddanka Soomaaliya waxaan doonaynaa ku kasto ama nina ama gabara ama hooyo ama odaya inay Soomaaliya waxa la yiraahdo istaagaan waddankooda dhistaan waddankooda wax ka qabsadaan taageeraan dawladda yani maxamed waxa la yiraahdo madaxweynaha maxamed uu yahay madaxweynaha in la taageero ra'iisul wasaaraha ku xigo golaha baarlamaanka midowgiis ku xigo in la taageero oo waxa la wanaagga ay wadaan iyo sharafta ay wadaan iyo dalka wax ay ku wadaan oo garanaysaa dhismaha laga hor imaan ee la taageero waxaan idin sheegayaa haddii aan taageerin waxaad ku dhumaysaan meel xun oo kabuura xun oo maalin walba yidhaahda maada shaqayn lacag ma lihin maalin walba idin yidhaahda yaad ku dhumaysaan waddankiina marwaaqa soora weeya waddankiina usoo jeesta kii xumaan la jooga waxa la ka midooba waxa la yiraahdo waa inaad midnimo iyo wanaag iyo sharaf aad isku raacdaan Soomaaliya ha israacdo ha midowdo horumar ha gaarto Soomaaliya ha midowdo ha israacdo wa salaam وحقوق أبوه وأنا لما هراني